waxaan ugu talaga iyaguna hawl bay ku maqan yihiin oo cudurdaar bay ku maqan yihiin oo 2 iyo 3 qof xildhibaan hawsha golaha deegaanka haddii awal la oran jiray kala maqan yihiin maanta way dhameystiran yihiin waxaana meel looga soo wada jeestay in golaha ayna degmada la hormariyo inta muddada noo hadhay haddii Ilaahay dhaahdo miisaaniyada 2019 waxay korodhay kulay faahfaahinta waxa agaasimaha ku wareejin doonaa boqolkiiba 5 bay korodhay sanadkii hore marka loo eego taas waxay keenaysaa oo ay muujinaysaa in wax qabadka iyo dakhliga degmadu marba marka ka dambeeyo kor u socdo kol hadduu dakhligu kor u kacayo waa in wax qabadka degmaduna kor u kaco sida ka muuqata wadooyinka iyo meelaha kale bulshada reer Booramidu maanu doonayna inaan halkan fariin uga gudbino hawsha aan maanta u fadhina waa mid dantooda ah waa mid danta degmada ah waxa goluhu maanta u fadhiyaan ay ka hadlayaan ay ansixinayaan iyagana waxa laga doonayaa qodobada halka ka soo baxa ee golaha deegaanku ansixiyo cid ka hor iman karta inaanay jirin ay tahay baarlamaankii degmada sifaha sharci loogu soo doortay inay yihiin waxaan maanta isugu nimidnay inaynu ka doonno ama kalfadhigii furno miisaaniyadda 2019 maanta bishii 8 bishii 11 2018 todobadiya waxaynu maanta gudagalaynaa oo xildhibaanada badankoodii fadhiyaan gudoomiyihii fadhiyaa wagaasiin maaliyadda fadhiyaa in laga doodo miisaaniyadii 2019 iyo miisaaniyadda 2018 wixii soo xirooday iyo wixii haray in laga wada doodo loo wada fadhiyaa kulay iyadoo faahfaahsan madaxyada iyo qaybaheega iyo waxa dhanba faahfaahsan yihiin agaasimaha maaliyadda ay siin doona